laakiin marka aqoon ahaan la fiiriyo macna si diiniyana marka la fiirino iyo raqba nafsiya qofku wuxuu asagu si gaar ah u dareemayo waa meesha aan kala qaadayna diiniyan mar waxa jira labada shakhsi ay naqsi isku yihiin isnusqaaminayaan waa marka ay distance aqooneed oo aad u badan u dhaxayso oo tusaale ahaan gabadhan waa PhD holder wiilkan waa la yaqra wala yaktub marka nusqaan nololeed ku keenaya isku environment kuma nool isku aragti waaqiciga adduunka kama haystaan kuf baa la yiraahdaa waa marka quraata oran kartid qofkaas iima qalmo shariicada islaamka oo adiidi kartid يعني ما يعني حرية نفسية لجاسي مركز أديكوا داخله لكن إنك أن شعلانها علماء ورئيسية كوسيانا يعني يصير عنه شرشران برنامج يعني تعليم كوسابسن إيجورك يعني لبض قف كان تعليم كديدو أو option يشوا وحيكون حرنتها لبض قف إن أنا إسكو جراف تعليمات أنا يشوك أو قف نسقان نفسي القصة ما ينهي أما تصال أنا ويلكي بقى قويانا gabadhii iyo wiilkiina isma keenayaan dad ahaan iyo aqoon ahaan way isla degayaan labada qofna waad ogtahay oo de kalibaasin sida dharkii isku yihiin labada qof oo nolosha wadaagay wax badan baa ka dhaxeeyo waa labada qof adduunka isugu dhow marka hadii tacliinta halka laga eegayo oo wiilku leeyahay de gabar iga aqoon badan oo waxa weey saa'idiga aqoon badan ma dhaqi karayo haday saas tahay waa cuddeer laakiin waxay ku xiran tahay wiilkan garaafkiisa aqoonta u joogo ama gabadhan garaafkeeda aqoonta u joogo waxa dib ku jirta labada qof hadii distance baan ku aad u dheer masaafo aqooneed oo kala fog hadii ku kala nool yihiin laba caalam bay kala joogaan isma dhaqi karayaan isma dhaqi karayaan nina tusaale yar ma ku soo qaadanaya nin qurbahan ku koray wax ku bartay dhaqankiisu qurbaawi yahay hadii gabar yar oo miyigi Soomaaliya laga keenay inkastoo gabdhaheenu miyiga ay yihiin gabdhaha ugu edabta badan oo in la dhaqabo anigu aan aad u taageersanahay ugu muhiimsan yani labada qof isku environment ma isma dhaqi karaan isku nolol maaha isma fahmi karayaan de noloshuna maaha dareenka jinsiga ah ee labada ruux laakiin dhaqan ka weyn oo ka balaaran ba meeshiya marka waxa keenaysa nusqaan nololeed baa imaanaysa laakiin sida hadda loo dhigayo doodaha loo galo waa khalad oo ninku leeyahay gabar aqoon la guursanay aduma jaahil baad equation state marka leeyahay gabar aqoon la guursanay maxay u leeyihiin marka kuwa laftirkooda wax barta is leedahay adiga deema ba fahansan war ana dhaqaalaha amal ma raqba nafsiya iyo diin baan u kala qaad hadda waxaan ku jiraa mawduuca yani waxaan ma banaantahay sama banaan markaan anigu hadda iraada maxamed ahaan gabar aqoon le ma doonayo مشروع معها واحد جن معها لكن وواح رقبة نفسية وحنا أنا بس كتعرابي ما كوا هبيات كنفط لكن هذه شيء مشروع أو دكسان لقديكو واحد جديد أنا كبر أقول لك قرصته واحد يكون حرنت جراف كي أقولت هذا عندي أنا بشيء لا هاي وقلت هاي ده ناك PhD هولر ما راح كتير ده شغله وقضت كوه هذا الشيء ما معمول كريس ما فهم كرينه ما أنت ضد واي بنات لكن هذا المجال كتعليم تكون حشرو ننهر كم عدد مرة يعني هاي أقونا الدينية مادية أن لا هاي ضد ضيض ما قد ما يساء قبر أقول مرة ولا يلدو ذي كريه ضد قد ما يساء وأن سوق جين كره معها هل ميدون برارن كره كم هلا ده كم هلا عند معمول كده ما شرط هذا ترى أديك هذا السهيبة أنا وحسنا وان جعله وحسنا وان نبعه والرقبة النفسية وواحد أدوجو أتجدها امتتاع نفسي أكون ريميس وواحد أديك كوجار لكن ضاد عام أو بابليك اللي جاك كرو إلى المركة للدودي أو ضاد ومذهب لجا هذا ضاد وين بابليك كجد مكانه وين الدودينا كجد مكانه وين ضاد ومذهب نقون كرنه وين social affairs كلغة تكره ضاد تقولها ضاد ومذهب نقون كده وحوي إن اللي يرادو جبر أقول لجورسين ميس سوما حاجة أديك أقول هذا هركض واسدة أنا جاهر كاس إيه مريسة هي ناكتن أديدي سيد أتكعرري سيد حاجة شوكتها هر كاس إيه مريسة وإن الناس لجور هديتي أو لجور عذري كرو لكن هدي أي تهاي جبر أقول لما معمول كرو because هذا وانا ركا حياة هذا حلقة دي يعني جبر أقول لجورسين مية because of نلاش بأركتيه وين كلا هذا هاي معمول كبي كلا يالنايسا صبحي مركا أدقو جرميتي ديرتا يضر إناي جرماتو وحاسو نوادودو شخصي رقبتيسا iyo rabitaankiisa ku dee ninkii doonaya gabar guriga isaga fadhida caruurta cunada u karisa
asaga shaararkiisa maydha housewife ninki doonaya gabar guriga iska joogto hooyo guri ah waa doonis nololeed oo asaga u khaasa ninki doonaya gabar ay talada wada leeyihiin miiska la soo wada fariisto guriga la wada maamulo arinta la wada gorfeeyo ayaduna waa doonis nololeed ee khaasa ee nas mashruuca ma ninki doonay nin walba isu doonayo weey marka wax dood laga abuuri kara ma waa raqba nafsiye waa nin walba nafsada nabiga umada say adiga kula tahay waa sax badana marka dadka aan arkay maxamedow darwish waxay leeyihiin xagga dhaqaalaha ya aad waxyaabaha ma aragtay rag ay ka doodayaan يعني waxa aniga shaqaystana way la rabtaa waxa iyada shaqaysana iyada hal wallahi taa waxaan oran karaa naagtaada hada jeebkeeda la cuni weyd adiga ku taa ya hadii gabadhaada ad wax wadaagi weydaan horta mid baan ku sheegayaa aan raba dadweynaha inaan sheego waxaa jira wax la dhaho social life oo nolosha caamka iyo wax bareefad leef ah mid hadda aan ka hadlayo aan ku leeyahay graffiti-ga aqooneed nusqi inay keento waxaas oo dhan waa wax mashruuca oo degan oo laga doodi karo laakiin gabadhaydu seemaan jeebkeeda ula wadaagi karaa iyo marka dambe waxa imaanaysa seebaan gabadhaydii anigu gugasho ugu heshiin karo yani waa arrimo bareefad ah adigay kugu xiran tahay inta xaaskaaga saaxiib la tahay adigay kugu xiran tahay inta adiga xaaskaagu aad shu'uunta gurigeena wadaagaysa waxaas oo dhan wax dadka publica dood uga furan ma waa maxay waa wax nin walba iyo capacity-giisa gabar walba iyo tayadeed dad walba iyo tafaahumkood waa wax ku xiran laakiin wixii mawaadiic guud ah baa fiican dhalinyaradu markay doodayaan ama ay mawduuc abuurayaan inay publica keenaan laakiin hadda markuu ku leeyahay gabadhaydu waxay shaqaysatana anigu ma cuni karayo waxaygana way cunaysaa ka shaqeydayna wixii la cuntid leeshid inaad wax la cuntid ilan hadaba waad ku qancisay inaad nolol wadaagtaan oo waad guursatay reeraheed waad ka soo kaxaysatay adiga guriga ku joogtaan haddaad dhaqaalaha la cuni weydid oo xataa all the time ka qaadan xataa daarid taxliga kale ka adigu si uun waxaaga u maarayso laakiin dood hadda kama dhigi karayo gabadho ninkeeda may dhaqaala wax ka siiso oo mu weydiisto oo mu ka keensado oo seebo uga keensanaya is up to him ayaga iyo relationship-kooda iyo noloshooda iyo qanaacada gurigooda iyo xiriiradooda iyo waa waxyaalo badan oo u baahan dadka in lagala taliyo oo ay nolol ay qofku uu taxallulkeeda asagu leeyahay oo uusan doodeeda publica u soo saari karayn صح xiriirada iyo waxaas ayaynu maaragtay bal maadaama xiriirada soo sheeqada marka qaar dadka waxa dhacdo isfahan waa labada qof ma taqaana afaf aan ku darsaday waxaan oo dhan anigu experience ma laakiin ra'yi umadeed baan ku leeyahay aniga laftirkeyga waa ra'yi ma aan ka wadaa dadku way gardarra badan yihiin su'aala waxay ku weydiinayaan gabar aqoonyahan waxaad ka hadlaysaa adigu bay aqoonyahan soo guursaday لكن أنا ترى هذا هو public opinion. وأركتي فرونه. أديك أنا تهذا أمبارح عشان أنا تهذا أنا expert كمية. Absolutely.